waa 320 askari looguna talagalay inay ku biiraan ciidanka kumaandooska Soomaaliga muddo sanad ah ay ku tababaranayeen dalka Turkiga. ciidamadan iyo saraakiishii la socota ayaa la soo baray qorsheynta dagaalada iyo qaababka kala duwan ee ciidanka. garoonka diyaaradaha waxaa ku soo dhaweeyay wasiirka gaashaandhigga, taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliyaha ciidamada lugta. taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka General Odawa Yusuf Raage ayaa soo dhaweyn u muujiyay ciidankan iyo saraakiishii soo gaaray dalka. runtii waxaa farxad aad weyn noo ah inaan halkan ku soo dhaweyno ciidanka qayb ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku soo dhameystay koorso in muddo uga socotay dalka aan saaxiibadanahay ee Turkiga in maantay wasiirka gaashaandhigga kusimaha taliyaha iyo guud ahaan saraakiisha kale inay runtii halkaan ku soo dhaweyno waxay taa farxad gaar ah. ciidankan ayaa tagi doona deegaanada ay ka socdaan howlgallada dalka looga saarayo maleeshiyaadka Al-Shabaab sida uu sheegay taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka Sareeye Gaas Cabdi Xasan Maxamed. waxa laydin soo tababaray oo aad u maqnaydeen waa dalkiina hooyo oo aad maanta ku soo noqoteen. waxaan rajaynaynaa ilaahayna ka baryaynaa inaad noqotaan kuwa ka soo baxa mas'uuliyadda la saaray oo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda ay u qaadeen. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa kula dardaarmay saraakiisha iyo ciidanka kumaandooska in si dhab ah dalka ay uga muuqato tababarkii ay soo qaateen isla markaana ay gaarsiiyaan ciidanka kale. runtii in la helo ciidan ama dhalinyaro u diyaarsan in naftooda iyo dhiigooda u bixiyo dalka in la helo muhiim waaye maadaama u diyaar garoodeen runtii taariikhda dalkana meel aad kaga qormaysaan insha Allahu ta'ala waxaana heli doontaan ciisad iyo karaamo iyo sharaf ayaad heli doontaan. waxaan aan rabaa inaan sheego dawladda runtii maanta uu hogaamiyo madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre sida taliyaha hadda uu ka dhawaajiyay waxaan ku jirnaa dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan. dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga waxaa ka dhaxeeyay heshiis lagu dhisayo ciidamo tayo leh waxaana jira ciidamo kale oo tababar uga socda xerada tababarada ee Turkisom ee magaalada Muqdisho. Naida Muxyidiin Dhiblaawe, warbaahinta qaranka, Muqdisho.